Aan wanaagsan dadka daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ku soo dhawaada daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeennii qiimeynta qodobka aan maanta sida gaarka u eegi doona ayaa noqon doona wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland maxaa hadaba u qabsamay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland 25 sanadood ee u dambeeyay muxuu ku soo kordhiyay Soomaaliland ama wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan Soomaaliland Saad Cali Shire waa maxay iyana sirta ku jirta booqashooyinka istaba jooga ah iyo xiriirka gaarka ah ee Saad Cali Shire inta badan uu ku tago wadanka Ingiriiska iyo wadanka Sweden iyo waliba wadanka Thailand marka la soo eego ama la isbarbar dhigo wasaaradii hore ee arrimaha dibadda xilligii dawladii uu madaxweynaha ka ahaa Daahir Rayaale iyo dawladan Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo waa maxay faraqa u dhaxeeya international communities amaba bulshada caalamku iyaduna sidee bay u aragtaa arrimaha dibadda dhaqdhaqaaqa ka socda ee wasaaraddaasi Soomaaliland ee arrimaha dibadda human rights-ka ayaynu iyana arrimaha bini'aadanimada ayaynu si gaar ah u eegi doonaa waxa kale oo barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa xorriyadda qowlka iyo warbaahinta Soomaaliland si kastaba ha noqotee daawadayaal kusoo dhawaada mar kale oo barnaamijka uu isna ila daadahanayo Mustafa Martin oo studio-heena ila fadhiya mar kale soo dhaw Mustafa waad mahadsantahay cali aynu gudagalno su'aalaheena marka ugu horeysa bal sawir guud naga sii wasaaradda arrimaha dibadda ee xilligan ee Soomaaliland sidee kula muuqataa wasaaradda arrimaha gudaha xilligan hadda arrimaha dibadda 2017 hadii aanu qiimeeno waxaad oran kartaa calaw waa mid imika aan gudanin waajibaadkeedii ahaa inay Soomaaliland u hesho ictiraaf inay ka dhaadhiciso qadiyadda guud ee Soomaaliland international community-ga inay tusto inay Soomaaliland ahaan jirtay state jiray muddada doonaba ha ahaadee inay Soomaaliland la soo noqotay gooniisutaageedii amba xornimadeedii amba unionkii ay la gashay Soomaaliya 1960-gii oo ay noqotay state amba republicankii dib uga soo noqday qadiyadaas ayaa ahayd horta in arrimaha dibadda ay noqoto qadiyada ugu weyn ee laga iibiyo ummadda arrintaas lagama iibin waxaan noqon karnaa waa arrin aan hawsheedii loo gudin inagoo sii gali doono siyaabaha ay 25 sanadood maxaa u qabsoomay wax tallaabo oo wasaaraddu qaaday ma jirta 25 sanadood inagoo qiimeynaa wasaaradda maamuladii ka horeeyay waxaad oran kartaa waagii dawladii Riyaale waxa la qabtay waxyaabo la taaban karo ilaa marka ka soo bilowday waagii cigaal wuxuu ku guuleystay wadanka inuu constitution ka sameeyo inuu abaabulo 3 xisbi qaran la sameeyo si loo galo doorasho waxa markaa dhacday doorashadii ugu horeeyay ee uu ku soo baxay madaxweynihii Riyaale Daahir Rayaale waxa la isku dayay markaa in international community-ga barboosladii ugu horeeyay la qoro oo laga dhaadhiciyo waxa halka ka soo baxday in lagu guuleysan gaaray mararka qaarkood in international community-gu ay qaadato ictiraafka Soomaaliland waxa dhacay 3 arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah waagii Riyaale wixii loo oran jiray African Unity-ga AU-du waxay markaa ku dhawaaqday inay Soomaaliland siin doonto wixii loo oran jiray special treatment si gaar ah ay u eegi doonto arrinta Soomaaliland dalal ay ka mid yihiin South Africa waxa iyagu laftigoodu sheegeen inay Soomaaliland buuxisay conditionadii oo dhan kana dhaadhiciyeen United Nations-ka ay goonistaag amba noqon lahayd wadan jira wadamada ay ka mid yihiin Europe iyo Ingiriiska waxay qaateen in Soomaaliland si gaar ah wixii aid amba bilateral aid ay bixin jireen si gaar ah loo siin karo waxa kale oo qaateen inay Soomaaliland ka saaraan Soomaaliya markay noqoto travelka ban oo markay wadankooda dadkooda ka baxayaan waxay yiraahdeen Soomaaliland si gaar ah ay u tagi kartaan waal ay bariga yiraahdeen Soomaaliya wali nabad maaha marka waxay heli jirtay Soomaaliland waxyaabo badan fursado badan fursadahaas oo dhan dhamaantood calaw imika waa gabaabsi waxay gaadhay heer imika Soomaaliland loo diido inay ka qayb qaadato shirkii ugu dambeeyay ee isugu timi international community ee Ingiriiska ah shirkaas oo ka soo baxay qodob aad iyo aad u weyn oo ahayd oo international community imika qaateen in Soomaaliya guud jiritaankeedu yahay muqaddas in la isu keeni karo ummadda Soomaaliyeed midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa shirka go'aankiisii ugu dambeeyay ka soo baxay Somalilandna shirkaas dibadda ayaa laga dhigay waxa imika promotion amba dadaal badan lagu jira sidii Soomaaliya la isku keen lahaa iyadoo wadana waxyaabahaas oo dhan waxa gabaabsi ka noqotay Somaliland wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha jira waxaan doonayaa inaanu qadiyada mar labaad ku sii baritaano
1960 Somaliland xorriyad bay qaadatay calan bay lahayd dawladna way ahayd 5 cashana way jirtay 35 wadan ayaa aqbalay inay tahay Somaliland wadan 35 wadan ayaa bilateral trade la samaystay Somaliland 7 sano ka hor Somaliland waxay lahayd wixii la oran jiray British colony bay ahayd waxay lahayd borders iyo dad iyo dunya la yaqaano Somaliland calaw qadiyadeedu ma qadiyad ka go'aysa Soomaaliya ma aha Somali Republic waa laba state oo isu tagay ayaa la oran jiray Somali Union Somali Republic marka qadiyadan go'aansataagu ma ahayn qadiyad imika laga dhaadhicinayo adduunka inay Somaliland go'satay ee simbali waxa in loo sheego dadka inay Somaliland ka soo noqotay isu tagi amba guurkii la gashay Soomaaliya yaa gabay markaa kaalinta waxa gabay yaa adduunyada sida ka iibin waayay oo ka dhaadhicin waayay waxa ka dhaadhicin kari waayay oo ka iibin kari waayay madaxda Somaliland oo cid kale loo maageen ma ahayn arrin ma aha Soomaaliya ay una qabateen ku saartay Somaliland inta badan ma aha laakiin waa arrin danaheedii ay ka seexatay Soomaaliya ee Somaliland ka seexatay marka waa arrinta wasaaradda arrimaha dibadda dib weyn ku keentay dowladda ugu dambeysay ee madaxda ka Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa soo maray ugu yaraantii ilaa 2 wasiir arrimaha dibadeed sidaan qiyaasayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Maxamed Cabdilaahi ayaa la oran jiray imkana wasiirkan cusub waxa la yiraahdaa Saad Cali Shire eegno waxa uu Saad Cali Shire ku soo kordhiyay wasaaraddan arrimaha dibadda maxaad tilmaami kartaa horta Saad Cali Shire qaabka uu imika u shaqeynayo wuu ka guuray qaabkii diblomaasiyadda ahayd inuu raadiyo qodobadeen soo sheegnay oo dhan wuxuu isu bedelay gaar ahaan qaab ganacsi imika wasaaradda sida loo maamulaya waxa weeye waa qaab ganacsi weeye inta badan wuxuu la hadlaya ama dadku u tagay waa dad investment uu kala hadlayo ama business opportunity arrinta foreign affairs ka Somaliland ma gasho arrin ganacsi waa arrin partnership agreement adduunka in laga dhaadhiciyo wadajir iyo iskaashi caalami ah marka arrimahaynu ka iibin karayno arrimaha ayaa waxa kamid ah gaar ahaan la dagaalanka argagixisada waxa kamid ah la dagaalanka burcadbadeedka waxa kamid ah in lala sii hadlo Soomaaliya oo international community ay soo saareen Somaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan oo yihiin laba dal oo isku qasban in waliba Soomaaliya ay noqoto wadanka ugu horeeya ee Somaliland taakulansiga ka caawiya dhaqdhaqaaqa goonisutaaga waxyaabahaas ayaa kamid ah waxay ahayd in lagu dabaqo arrinta noocaas dimuqraadiyad wanaagsan iyo hanaan socod wanaagsan inuu ka dhaco wadanka gudihiisa oo dawladdu ninkan Saad Cali Shire uu yahay magaalada Secretary of State uu yahay inay habdhaqan wanaagsan la timaado waxyaabahaas oo dhan hadda ninkan waa ka gaabiyay wuxuuna isugu beeshabtay nin fursado ganacsi hadda jeer kolba wadan ka raadsanaya wuxuu nin qabow oo degan oo mararka qaarkood hadaladiisu waxa marka la hadlayo warbaahinta oo kale hadalladii u dambeeyay waxa uu sheegay in uu salugsan yahay qaabka caalamku ama international communities ay ula macaamilayaan Somaliland isagoo tilmaamay in aan loo ogolayn deeqo sida Soomaaliya lagu ogol yahay in aan loo ogolayn aqoonsi in aan loo ogolayn tixgelin gaar ah oo mararka qaarkood dhaqaale hay'ado loo soo mariyo aanu jirin maxaad oran lahayd arrimahaas oo kale ma arrimo uu ka gun gaarayba mise waa kuwa uu iska qiyaasay intuu socon kari waayay ama meel dheer gaari kari waayay 5 sano ka hor international community waxay soo saartay wixii la oran jiray special arrangement in Soomaaliya iyo Somaliland gaar loo kala saaro haday noqoto wixii caawimo ah arrintaas condition ay ku xidhnayd maamul wanaag human rights dimuqraadiyad in xorriyad la helo in wadanka la magalanaysa si xorriyada media dadka warbaahinta loola isticmaalo qodobo caynkaas ku xidhnay wixii oo dhan Somaliland iyada ayaa burburisay maamulkan iyada ku talaabsan weytay arrimahaas oo dhan waxay keentay international community marka ay ka xidhiidh furmaan Somaliland oo ay u sii tafaxitaan dhinacii kale Soomaaliya marka arrimahani waa arrimo ku yimi markii maamulkan uu sidan u shaqeeyay gaar ahaan markii isaga laftigiisu كمل ما سياسة Somaliland يعني قطعون مد جناعسي يمد دقالة يمد كانبي إلا هلو لكن نقول كانوا وادين له راديو اعتراف مركز يسجل لفتي سواء قيب الباح أيوك يا رمان نوعنا وزارة ما تبدأ Somaliland هاي هذه الشير أنت بدن أي حريد كل الدول يصعد على كل الدول أي وتكان وطن كيوكي السويدن يقول تايلاند حكتره النهارده وحوي Somaliland ولي ما هلا وحلو أنت foreign policy ما ترى أجند قرن ودون كل جاي يبين كرا عم بطلابين عد ولا قاضي كرا ولا جاي يبين كرا ومدة ما جرته وحنا ورد دقائق ذلك سال ما حد يروح هذه يشر معها foreign affairs وطن كلا ما حد يروح وحكومة شهية ولا حد يروح فرصة دقالة وأون إنكم بين الله تقو كونتراك لصيو كونتراكنا laga soo saxo dabadna dawladda inta iskaashigeeda reerka qoyska la joogta ay arintaas ku magaranaysa
kala qaybsadaan laakiin lama xidhiidho arriman diblomaasiyad arriman dimuqraadiyeed waxaana halkan ka cadcalow si toosa inuu Sacad Cali Shire qayb ka mid yahayba inuu wadanka isaga laftigiisa afgambi siyaasadeed ku rido oo uu tareengareeyo dawladda iyo dadka reer Soomaaliland in qaabkii Carabaha loo dhaqmo oo wadanka dimuqraadiyeed ka dhicin ta keenaysa arrintaasi waxa weeyaan isaga iyo groupkiisu waxay shareholder amba ka yihiin qayb ka mid ah dekedan berberiya dhaqaalihii loo oran jiray xuquuq qalinka waxay kaloo qayb ka mid ah ka yihiin mustaqbalka dambe ee soo socda waxay kaloo qayb ka mid yihiin shidaalada wadanka laga qodiyo waxay qayb weyn ka yihiin mustaqbalka dhaqaale ee wadanka Soomaaliland iyo kontraktada ay gashay marka niman wadanka dimuqraadiyeed ka ridaya maaha niman wadanka aqbalaad u soo raadinayna maaha waayo aqbalaad haday timaado waxay imanaysaa xeer ilaalin xeer dejin iyo xisaabtan iyo dhaqaale burbur marka waxyaabahan oo dhan markaad eegto maaha niman diyaar u ah imika Soomaaliland waxay hadal hayn jirtay inta badan i'tiraaf sanadahan u dambeeyay waxa moodaa inaan soo hadal qaadin ereyga i'tiraaf miyay ka qoosteen mise waxa weeye hawl kale ayaa busy lagu yahay hawl kale busy lagu yahay maxaa kamid ah dhaqaale urursi madaxdii iyo dawladda intii la adeegisay ayaa waxay u tafaxayteen inay wadanka dhaqaalihiisa cunaan dhaqaale weyn helaan mid dabadeed iyo mid gudaheedba marka waxa la ilaaway dhaqaalihii waxa la ilaaway raadintii i'tiraafka waxa la ilaaway arrimihii bulshada arrimihii deegaanka danyartii marka wadankii waxa ku dhacay faqri ciida ka badan waxa ku dhacay burbur dhaqaale waxa hoos u dhacay arrimihii deegaanka arrimihii bulshada waxaas oo dhan dusha waxa kaga keenana waxa weey waa maamulkan iyo inta la xulufaa waxaanay doonayeen imika inay daaqadihii international community oo dhan inaga soo xidhaan waa tii bariga dhawata madaxda Soomaaliland Sacad Cali Shire kow ka yahay ay ku dhawaaqeen inaanay u baahnayn inay electionka kala tashadaan international community-ga oo aanay u baahnayn dawlado kale oo shisheeye oo gacanta la soo galay Soomaaliland arrintaasna waa arrin halis ku ah Soomaaliland maaha island cidla degan waxaanu ku xidhanay jiritaanka ummaddu waana ku xidhnaada jiritaan kale marka arrimaha noocaas ay doonayeen ka sii tafirgooyaan ummadda adduunka oo dhan waa arrimo keenayeen waxyaabo badan oo dhaawac waxa la yiraahdaa siyaasiyiinta Soomaaliland marka ay caalamka la kulmaan oo ay wada hadlaan caalamku waxay ku yiraahdaan dimuqraadiyad wad ka fogaateen xuquuqdii aadminimo xorriyadda qowlki wax badan dawlad wanaagii wax badan baa ka maqan oo raba inaad ka soo baxdaan si marka i'tiraafkiina aan uga baaraan degno ama aan uga wada hadalno taasna wali waa ka fogtiin mas'uuliyiintu waa kuwa Soomaaliland markay soo noqdaan shacabka waxa u sheegaan wixii caalamku ay ku wada hadleen wax ka duwan oo ay yiraahdaan i'tiraafka aad buu soo dhow yahay dawlad wanaag baa la inoo sheegay dhaqaaleheeni baa laga yaaban yahay ismandhaaf caynkaas oo kale oo siyaasiyiinta iyo shacabka u dhaxeeya maxaa loo horta dadka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliya dadkeena oo dhan gaar ahaan waa dad aad iyo aad masaakiin ah oo inta badan aqoon badan lahayn aaminsan hadda jira madaxdooda wixii ay u sheegaan waxyaabaha qaladka inagu weyn ee inagu dhacay haddaynu gudaha iyo dibadba nahay waxa weeye madaxdeennii oo had iyo jeer la kulanta dad aan xitaa qualified ba u ahayn in lala kulmo marka sawiradan iska qaadeen umada u sheegayeen baa ah sawirro qalada oo been abuura badankood waxay la kulmaan wadan shakhsiyeed way amba ganacsato amba dad abaabulan mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaanay laba kulmin dad reer Soomaaliland oo la kulmaan dad Soomaaliya dad kala ah sawirro iskaga soo qaadeen oo yiraahdeen community ayaan la kulnay waxyaabahaas oo dhan waxyaabo lagu maaweelinayo amba been lagaga sheegayo policy-ga amba ajendaha guud ee international community la leenahay laakiin si daacada oo si toosa weli mayna arag maamulkan intii uu jiray inay ugu adeegaan qadiyada amba goon istaaga ummadda reer Soomaaliland dadkana waa dad calaw sugay muddo 25 sanadooda i'tiraaf raadin arrintan ay ka dhaba tahay oo ku dhisan jirkooda in Soomaaliland goon istaag ay hesho laakiin madaxda Soomaaliland hadii jeer arrinta kama imada dhalin waana arrin aad iyo aad khatarteeda u leh waxaan eegi doonaa dhinaca human rights xagga xuquuqda ee Soomaaliland si aad la socoto maartay dad fara badan baa jira oo xabsiyada Soomaaliland ku xidhan oo aan maxkamadda la soo taagin qaarkood ay 2 sanadood markay ugu yartahay ay ka sii jiraanba oo si xinaadaan iyagoo wali maxkamadda geeyay waxa la sheegaa dad badan oo iyana jeelasha Hargeysa ama Burco ku dhinta oo lagu tilmaamo inay dacdarro ay ugu dhintaan dadka la iska xidho marka waxa soo dhan la isku soo xoodaamiyo maxaad ornaa aragtidaada ku saabsan xuquuqda bini'aadamka Soomaaliland horta xuquuqda bini'aadamka inagu dhowr u kala saarayna ayaamahan dambe intii maamulkan jiray waxaad arkataa wixii loo jeedo xorriyadda xagga warbaahinta oo aad iyo aad loo dhaawacay oo dad badan oo dambi geysan lagu xidhay Soomaaliland xeerkeeda amba constitution-ka baarlamaanka waxa ku yaala inay tahay Soomaaliland wadan media amba xagga warbaahinta yahay xor oo ka fog
in jeelasha lagu guro amba la iska xidho ayaamaha taasi way isbedeshay waxaana tusaale weyn u ahaa ninkii caanka ahaa ee samafalka adduunka u shaqayn jiray la oran jiray Oldon oo bari dhawtay isagana jeelka la geliyay waxaa jirtay 3 qof oo inagu halkan uga doodnay oo iyaga laftigooda warbaahinta ah oo si toos ah loo xidhay arrimahaas waa arrimaha inaga sii fogeyn kara international community-ga maadaama ay rabeen in dhahooda soo jeedino dhaqaalahooda soo jeedino marka arrimahaas waa arrimo dhaawici kara mustaqbalka Somaliland xagga human rights-ka markaad eegto waxyaabo badan ayaa jira oo human rights-ku aad iyo aad ay uga yihiin dareenkooda u kiciya ta inugu weyn imika waxay faqriga ku sii habsaday ummadda reer Somaliland hadday noqoto abaaro iyo hadday noqoto iskaashigii ay dawladdu gelin lahayd labadaba xagga caafimaadka xagga arrimaha bulshada iyo xagga arrimaha deegaanka waxaas oo dhan wax keenaya inay human rights amba xuquuqda bini'aadamku khatar gasho xuquuqda bini'aadamka calaw ma aha in qofku dambi ka galo markuu qofku wadankiisa ku gaajoodo heli kari waayo daweyn heli kari waayo waxbarashadu waa qayb kamid ah human rights amba xuquuqda bini'aadamka waxyaabahaas oo dhan markay sii wiiqmaan waxay keeni kartaa halis inay Somaliland aan heli karin i'tiraaf iyo sharaftii iyo mudnaantii ay mudnayd marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabahan doonayno inuu ka dugno waxaan gundhiga uga dhigaynaa calaw Somaliland waxyaabo badan wanaagsan bay qabatay 25 sano u dambeysay laakiin waxaad moodaa 7 sano u dambeeyay inay sii wiiqmayaan arintaynu doonayno Somaliland foreign policy-geeda ku darno waxa weeyaan qofku sharaf amba wanaag badan kama heli karo adduun qalaad hadaan wadankiisa dayactirnayn hadaan conditionada noocan aan la hagaajin waxa weeyaan international community laftigooda si wanaagsan oo hagarlaan ay nolosha shaqeynayso dhinaca saxaafadda la eegi doona iyadana saxaafiyiin fara badan baa lagu xidhay magaalada Hargeysa iyo qaarkood berbera ama Burco aragtidaad ku saabsan saxaafadda ama xorriyadda qowlka Somaliland maxaad iyana ku miisaami lahayd ku qiyaaslay orda runtii marka dadku ay yiraahdaan saxaafaddu waxa weeyaan waa waxa ka turjuma dareenka ummadda haddaan ummadda dareenkeedu xor ahayna waxa weeyaan dib weyn ayay gaari kartaa waxyaabaha programkeena qiimeynta ka dhigay program dadku ay aad ugu xidhayeen waxa weeyaan inagu inta badan waxaan haysanaa media xora waxa weeyaan halkan wax alla wixii aad doonto ayaad ka sheegi kartaa haday noqoto arrimaha bulshada deegaanka madaxweynaha baarlamaanka waxa doonto ayuu qofku halka ka sheegi karaa marka waxa weeyaan in lagu xidhan maaha marka arrimaha media Somaliland waxay saxeexday xeer international community ay la qaadatay oo ah inay tahay free amba xor amba media xalaala arrintaasna waa arrin nagu soo jeedin karta ummadda haddaynan sideeda ugu dhaqmin oo inaan si xalaalada u hagaajin way maadaama aan niri xorriyadda qowlku aad buu u hooseeyaa Somaliland barnaamijyo fara badan oo taxana ahaa ayaynu halkan ka soo jeedin jirnay oo qiimeynta oo kana kamid yahay aad marna lagu hanjabaaday laftaada ama email lagu soo diray ama telefoon lagu soo diray in Hargeysa hadii aad timaadid lagu xiri karo maadaama aad hadallo aan dawladdu raalli ka ahayn aad sheegtay horta waxaan dib u raacayaa eray adigu aad tiri maalmaha kamid inagu halkan wada fadhina ayaad waxaad tiri markaan qiimeeyay deegaanada ummadda Soomaaliyeed Somaliland waxay tahay deegaanka ugu caafimaad qaba xagga media waayo inta badan waxay tiri meelo badan markaan u barbardhigay wali iyagu way noolyihiin sababtu waxa weeye markii deegaano kale aad u barbardhigto Somaliland media-heedu waa media caafimaad qaba laakiin tusaale doonay noqoto Somaliland maxaa la faraska waxa lagu dhiftay in orod ka dheeray Somaliland waxa weeye media-heedu gobolada kale oo dhan way ka noosho way dhaanta haddana waxaan leenahay laakiin wali dib baa jiro dhibtuna farta ku fiiqayna waxa jira TV badan oo ka tagay wadanka newspaper badan oo la xidhay sidii wadankii la oran jiray Wargeysa Ilays magaranaysa iyo waaheen marka waxyaabahaas dhan waa carqalada jira laakiin waxaan doonaynaa waxaasi kobcaan oo ay hagaagaan gaar ahaan maadaama Soomaaliya imika ay xawli adag ku socoto in Somaliland ay sagaajiso ayaan doonaynaa way balance barnaamijkan uu noqdo mid dheelitiran maadaama aan ku hadalnay dhinaca dalilaha iyo inta ay xukuumaddu imika ay leedahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaan eegi doonaa sidee hadda wax ku hagaagi kareen conclusion markaan soo nimaadno barnaamijkan sidee wasaaradda arrimaha dibaddu aad meertin u oran kartaa waxay u baahan tahay inay jidka iyo wadiiqada ay marto si marka caalamku ay u aaminaan ugu kalsoonaadaan dibadana ama i'tiraaf noqoto ama sidoo kale gacanaha loo siiyay in la garab istaago oo la taageero ayaa iman karta maxaad oranahay horta waxa weeyaan Soomaaliland waa in la timaado foreign policy cad oo qayaxan waxay ujeedada ay ka leedahay arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda waa inuu ku shaqeeyo mandate-ka policy-gaas ama qorshahaas
oo uu suurtageliyay in la iibin karo qadiyadda ummadda reer Somaliland dowladda Somaliland waa inay dhisi kartaa wixii loo oran jiray arkaantii amba xeer dejintii wadanka golaha baarlamaanka waa inuu sameeyo wixii loo oran jiray waxa la wixii qaynuun wadanka waa in la fuliyo waa in garsoorka iyo dejinta iyo fulintu ay wada socdaan ka hor wadanka intaan laga iibin arrimaha dibadda waa in arrimaha deegaanka iyo bulshada ummadda ay dhisan tahay media waa inuu xorasha human rights waa in la hagaajiyo conditions noocaas oo dhan markay abaabulaan ay dhisan yihiin ayaa international community-ga wax laga iibin karaa laakiin calaw waxa weeye meeshu waxa weeye intii oo dhan markay aad ku soo tumato ee dadka gaajo la hayso doorashooyinkaas shanteer dib u dhigto xisbiyada ay shaqayn kari waayaan meesha ay noqoto un dilaalnimo iyo iib international community-ga intaa waa loo soo warramaya wixii oo dhan kama qarsoona marka qadiyadaadi kama iibin kartid marka guri wanaagsan ayaa laga iibin karaa ummadda adduunka kale oo dhan laakiin lagama iibin karo deemaan musuqmaasuq iyo gaajo ay hareysay waa hagaag aad baad mahadsantahay Mustafa Martin daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi qiimeynta ee taxanaha inoo ahaa oo aan si gaar ah uga hadlaynay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland iyo kaalinta muuqaal ahaan marka la qiimeeyo sida ay noqon karto maxaa uu qabsoomay Somaliland 25 sanadood gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland waxa ay mashquul ku tahay DP World shirkadda haatan iyadoo kareysatay dekada magaalada Berbera mise waxa ay mashquul ku yihiin in loo raadiyo shacabkeeda i'tiraaf caalami ah oo ay adduunyada markaasi u soo jeesato Saad Al-Shire oo ah wasiirka arrimaha dibadda kaalintiisu ma qoyar socodba mise waa nin dadaalkiisa keeni karaya oo ah ninkii ugu mudnaa oo la oran karo markaasi waa wasiir lagu aamini karo laguna kalsoonaan karo inuu i'tiraaf u raadiyo Somaliland isla Saad Al-Shire wuxuu ugu meeraystaa UK Sweden iyo wadanka Thailand waa maxay sirta ka dambaysa arrimahaasi waxa kale oo aan isbarbar dhignay xilliga Daahir Riyaale iyo madaxweyne Siilaanyo iyo wasaaradda arrimaha dibadda heerka ay xilligaasi taagneed adduunyadu ama international communities ku sidee bay u arkaan maama ay isha u hayaan Somaliland xuquuqda bini'aadamka marka laga eego iyo weliba xorriyadda qowlka dhinaca saxaafadda iyo warbaahinta Somaliland daawadayaal barnaamijkeena intaasi ayaan kusoo koobiyay tan iyo kulanka dambe barnaamijkan oo kale inta dib u kulmi doono dhamaantii buu Cali Xaraare iyo Mustafa Martin oo idin leh sida ayuu nabad geliyo thank you sir aad u mahadsan